muuqaalka sheekadina maanta waxay ku bilaabanaysaa gabadhan la yiraahdo Dodo oo isku tijaabinayso dharka arooska kadibna sawir iska qaadaysa waxayna u diraysaa saaxiibkeed Leon hotel ayuu wuxuu kula tumanayaa gabadhan la yiraahdo V gabadhina sawir ayay ka qaadaysaa kadibna waxay u diraysaa Dodo wayna u sheegaysaa meesha joogaan Dodo markii goobta soo gaartana waxa halka ka ogaanayna gabadhan ninka la tumanaysa inay tahay isla saaxiibteeda Dodo marka xanaaq ayaa ka tambadeynaya farantiga uu guriyay ay u tuuraysaa kadibna way qaraacaysaa dharkooda ay qabanaysaa banaanka ay u soo tuuraysaa taasoo Leon iyo V ku kalifaysa inay ayago dharka jiifka wataan inay hotelka soo baxaan kadibna sawir ayay ka qaadanaysaa si ay ugu ceebeysato Dodo marka waxay ogaanaysaa guurka inaan waran kansalin Lee laakiin magaceeda uu ku bedelay V oo gabadhaas ay booskada galayso Dodo arrinka markay xaqaysato aad ay u xanaaqaysaa markaan waxay doonaysaa inay wajahdo labadoodaba qorshaheedan ay halka ka wadanaysaa dhanka kale waxa arkaynaa ninkan la yiraahdo Kin waana CEO Kin Group ka kamarigaas weyn Leon ma doonayo gabadhan la yiraahdo V inuu guursado maadaama dadka waxyaabaha gadaal ka dhahayaan oo aad u dhibsaday laakiin hooyadiis ay ku galiftay oo ku qasban yahay markaan isla markii arooska iyo aroosada masraxa arooska ay istaagaan Dodo ayaa isla markaas soo gaaraysa goobta iyadoo dharka arooska xiran uma imaan in la guursado laakiin waxay rabtaa inay ku fadeexaysato sawirradii ay ka qaaday Leon hooyadiis sidii wiilkeeda sharaftiisa u badbaadsato security ay wacaysa kadibna waxay leedahay gabadha banka loo tuuro isla markaas waxa soo gaaray goobta Kin markay aragtay Dodo isla markaas waxay leedahay intay jirtay ninkeygii taasoo Leon aad u yaaminayso maadaama ninkan ay ugu yeerayso inuu yahay ninkeeda waxaan halkan ka ogaanaynaa inay hore u soo kulantay ninkan kadibna ay iska soo fiirisay waxayna ku codsatay inuu matalo ninkeeda asigana markuu arkay gabadhan quruxda badan oo sida ka codsanayso wuxuu dhahay fursadan qaaliga ah iska khasaarin wuuna ka faa'iideystay sidaas ayuu goobta arooska ku yimid asigoo matalaya ninkeeda inuu yahay gabadhan kadibna mikrofoonka ayuu qabsanaya kadib dadka dham ayuu u sheegayaa ninkeeda inuu yahay gabadhan xiriirkan beenta ay halkan ka bilaabeen halkan kuma ekaanayo oo Kin wuxuu doonayaa inuu official ka dhigo farantiga ay u gelinaya isla markaas kadibna Kin ayaa Dodo dhigta wuxuu ugu sheegayaa inuu hawl u bilaabo wiligiis u qabi ugu tagin ayadoo yaaban ay fiirinaysaa xafladda guurka markay soo gabagabowdo Leon hooyadiis ayaa ku soo amraysa inuu meesha imaado maadaama Kin uu yahay nin taajir ah adeerna Leon uu aadan yahay waxayna ku qasbaysaa ninkan adeerkiis marna hantilaha ah inuu u hambaliyeeyo uuna yahay adeer dadka hortooda kadibna sidii ay u sameynayay Leo oo u hambaliyeenaya adeerna uu ku leeyahay laakiin wuxuu sheekada ugu dheelayaa markuu Dodo u hambaliyeenaya ay wuxuu isticmaalayaa magaceeda taasoo ka xanaajinayso Kin Leon marka wuxuu qosbanayaa sheekada inuu bedelo oo Dodo ay wuxuu magacaabayaa Edo maalintii xigtay Dodo waxay imaanaysaa kamariga ay ka shaqeynaysa ee ka ahayd naqshadayda waxayna ku kulmaysaa V oo daadaansanayso arooskan ku tilmaamayso mid fake ah waqti xaadirkaasna Dodo way ka caroonaysaa kadibna muran ayaa dhaxmaraya labada gabdhood isla markaasna V ayaa iska dhigaysa inay Dodo darbaaxday isla markaasna Leo ayaa meesha goobta soo gaaraya wuxuuna ku amrayaa Dodo inuu raaligelin ka bixiso arrintan laakiin way ka diidaysaa oo waxay leedahay waxaan sameyn raaligelin ka bixinayaa isla markaasna wuxuu daray saacad ka duubtay taasoo ay ku cadeynayso V wajigeeda saxda ay ku soo bandhigayso Leon halkan wuxuu ka xaqiiqsaday gabadhan u guursaday gabar fiican inay ahayn Dodona waxay ku leedahay waxaan aad ugu farxsanahay nacas adigoo kale inaan guursanin isla markaas Leon hooyadiis ayaa Dodo wacaysa kadibna lacag ay u ballan qaadaysaa inay gabadh wiilkeeda faraha ka qaado laakiin Dodo way ka diidaysaa arrintaas Leon hooyadiis markaa waxay isku dayaysaa biyo inay ku shubto Dodo laakiin Dodo ayaa ugu hormaraysa oo iyada biyaha ku fardhinaysaa isla markaas Kin oo goobta ka dhawaayay ayaa soo gaaray meesha wuxuuna halkan u istaagayaa inuu xaaskiisa difaaco V ayuu ku amrayaa inay raaligelin ka bixiso arrintan laakiin Dodo oo yaaban ayaa waxay ku leedahay meeshan wax saas kama dhicin maxaa rabtaa halka asiga uu iljibinayo dhahay arrintan ku raaxayso waxaan sameynaa meeshan Vin raaligelin ayaa ka bixinaysa maadaama ay ku qasbanaatay kadibna Kin Dodo ayuu goobta ka wadaya gaari ayuu galayaan kadibna way mahad celinaysaa asigana aad ay ugu farxaya arrinkan kadibna wuxuu ku leeyahay wax walba doonto aniga ku sameynayo laakiin waa in la noolaataa oo saaxiibtay aan qataa wayna ka diidaysaa isay goobta ka cararaysaa maalintii xigtay Dodo alaabta gurigeeda u tilaya banaanka la soo tuuray maadaama lacag badan lagu yeeshay Dodona markaa waxa ku sii badanay xanaaqa ay V u qabtay markaan waxay doonaysaa si fiican inay u arsato maadaama V ay nolosheeda qaribtay waxaan arkaynaa markaan idoo V darbaaxayso kuna dhahaysay walba ay nabi jirtay isla markaas V way ooyinaysaa banaanka inay u cararaysaa Leo ayna tagaysaa isla markaasna Dodo hore ay u baaran degtaan inta caankeeda ay tusinaysaa darbaax ku taalo taasoo Leon oo raaligelin ka bixinayo maadaama uu aaminay V inay darbaaxday Dodo isla markaas Kin ayaa goobta soo gaaray oo malaysa gabadhan inuu wardiyanayo gabadhan V ayuu ku xanaaqayaa shaqadan uu ka xirinayaa gabadhan meesha uu ka wadayaa Dodona markaan sheekada markii hore sidii rabtay ay u socotay laakiin Kin markuu soo gaaray way ku xanaaqaysaa markaan waxay ku leedahay sababta jiliinkayga oo si fiican ugu socday iga qasta maxay tahay oo gabadhaas jiliinka ay ugu sameey jirtay ayaan ku sameynay iyadana isla markaas Kin wuxuu ku jawaabayaa xaaskayga saxda naqo qof walba aniga ka difaacayo wayna ka diidaysaa kadibna wuxuu sheegayaa familkiisa inay doonayaan inuu guursado wuxuuna ka codsanayaa 3 bilood inay xaaskiisa saxda naqato familkiisana ay u jasho xaasnimada waxa la waxay doontaan oo u sameey doono isla markaasna way soo bedeshaa waxayna leedahay guri ijaar maadaama idin guri laga soo ceeri maadaama codsigeeda codsi aad u yar oo xagiis ka yahay isla markii uu ka ogolaanayaa isla markaasna wuxuu u wadayaa familka casho ay soo imaanayaan Dodo waxayna kula kulmaysaa halkaas hooyadiisa halka Leon hooyadiis goobta ay ku sugnayd maadaama familka ay ka tirsan tahay waxay kula talinaysaa gabadhan aan la aqbalin laakiin Dodo Kin hooyadiis aad ay u helaysaa Dodo
wayna ku farxsantahay gabadhan quruxda badan inay wiilkeeda guursato isla markaas ayaa Leon iyo V oo xaaskiis ah waxa lagu amrayaa inay hortooda jilbaha dhigtaan kadibna ay salaamaan maadaama reerkan dhaqankooda uu sida yahay qofka uu sareeyo reerka oo kiin ah arooska cusub oo reerka ka tirsan intay jilbaha dhulka dhigtaan inay salaamaan ninkan Leon iyo V siday sameynayaan doodona aad ay u farxaysaa maadaama ay jilbaha hortooda dhigteen reerka dhamaana doodu aad ay ugu helayaan taasoo V iyo Leon hooyadiis aad ugu xanaajinayso kin hooyadiis ay u sheegayaan inay gabadhan wili ayna ogolaalin markaas intay dhigta ka jiiday ayay waxay ku leedahay xataa gabar qalbigeeda mahana kartid miyaa wiilkaygiiyo kadib waxa arkaynaa kiin oo gabadhay siinayo hadiyad aad qaali u ah maadaama ay caawisay kadibna waxay soo aadaysaa kiin caawihiisa guriga uu sheegay markay timad waxay arkaysaa kiin oo guriga dhex dabaalanaya barkada ku tiilay aad ay ugu xanaaqaysaa kiin uu salaamayaa kadibna iyadoo xanaaqsan xagiisa ay soo aadaysaa kadib madaxa ay ku dhufanaysaa kadibna waxay weydiinaysaa sababta uu halkan u yimid wax ka qabanayo wuxuuna ku leeyahay gurigan gurigeyga waay laakiin Dodo ayaa ku dhahaysa gurigan aniga ayaa doortay inaan ku noolaado kadibna kontraadii ayuu soo qabanaya wuxuuna tusinayaa wax ku qornayo oo ah inay guriga isla wadaagayaan Dodona markaa waxay ku qasbanaatay 3 bilood inay ninka la noolaato guriga ku noolaato maalintii xigta Dodo waxaan arkaynaa shaqada iyadoo lagu dacalsiinayo halka Leon markaan qaladkiisa uu qaranayo kadibna uu raali gelin weydiisanayo Dodo hatta wuxuu ku sameeyaa furo ayuu siinayaa oo guri wuxuu leeyahay gurigan anaga iska leh oo adiga ayaa kadib dagayso Dodona isla markaas furo inta turta ay ka tagaysaa laakiin wuxuu leeyahay aniga ma sabray oo maalmahan keeda waa ku soo xirgeli doonaa kinna meel fog ayuu ka fiirinayaa waxa meesha ka dhacay dhamaan aad ayuu ugu xanaaqayaa kiina guriga ayuu soo laabanaya kadibna wuxuu arkayaa Dodo wuxuu ku leeyahay dhamaan hantidiis ayuu u keenayaa wuxuu leeyahay waxa doonta ka qaado laakiin waa inaan la joogto aniga waxayna ku leedahay 3 bil ayaan xaaskaada jilay guriga ayaa la soo degtay guriga hadaan ka qaato nolosha inta ka dhiman ayaa kula jooga ayaa rabtaa kadibna kiina ayaa ku dhahayo maxaa ka fiican taas Dodo ayaa ku dhahayso iga jooji sheekadaas oo gurkan feega ayna soo gabagabay ayaan doonayaa kiin markaan iska seexanaya la kurda ayaa ka soo dhiciyay maadaama uu soo xasuusanayo wixii dhexmaray Leon iyo Dodo isla markaas caawihiis ayuu wacaya amar ayuuna siinayaa subaxdii xigta Dodo markay xafiiska tagto waxay ogaanaysaa Leon in meel kale loo bedelay CEO cusubna oo goobta soo gaari doono CEO-gana cid kale maahan waa isla kiin Dodona markaa waxay ku fikiraysaa guriga ayaan kala joogi weysnaay haddana waa inaan u sabraayo shaqada inaan isla joogno isla markaasna kiin wuxuu sameynayaa xaflad ay u dhigayaa oo soo dhaweyntiisa ah Dodona markaan kiin waxay ka codsanaysaa inaan xiriirkooda la ogaanin laakiin kiin sida uu dhaqmayo oo jacaylka uu muujinayo ayay shaqaalihii ka shakinayaan isla markaasna waxay arkaysaa 2 gabdhood oo xamanaysa oo ku dhahayso kii hore madax meesha ka ahay ay saaxiib leeyahay haddana midka cusub ay saaxiib la tahay gabadhan nooceeda maxaa waaye isla markaas kiin oo asaga sheekada maqlaya ayaa imaanaya kadibna labadooda ay isdifaacayaa Dodona markaa iyadoo xanaaqsan ay ku leedahay wax caawin ka baahan iga tag waan ka tagaysaa goobta asiga ugu dabaqaynaya fadlan Janice kale si isla markaas labadii gabdhood oo meesha taagneed waxay xamanayaan ayaa ka xanaaqay arrintaas kadibna ku dhahay gabadhan aan ku doonayn maxaa ugu dabaqaynaysaa inta ku soo jeesto ayuu ku leeyahay gabadhan maahan mid ay raadinaysa aniga ay raadinayo taas ogaada oo aniga ayaa jecel oo markaas ciisalaadiina ma ay soo gudbinaysaan mase shaqada ayaan ka cirinaya ay ku leeyahay dhan kale fi Leon ay waxay kula talinaysaa inuu adeerkiisa uu ka dalbo inuu joojiyo daladiisa laakiin asiga ayaa qorshaha qod ka waday isla markaas asiga xanaaqsan ay ku soo jeesanaya wuxuu ku leeyahay qaladka ugu weyn aan gala waa adigana ku guursaday kadibna fi oo arrinta ka carootay ayaa waxay ku leedahay arrintan dhan waxay ugu dhacaysaa Dodo darteed waa inaan Dodo ina nolosha ku ciqaaba isla markaas Dodo gurigeeda ay tagaysaa kadibna waxay ka soo xadaysaa naqshadihii dahabka ay ku naqshaday jirtay maalintii xigta shirkadda ayaa xaflad lagu qabanayay Dodo design-keeda lagu hambaliyanayo maanta la soo bandhigayay isla markaas shaqaalaha mid kamid ayaa imaanaya kadibna wuxuu leeyahay naqshadan aan diyaar rabno hore ayaa qof u soo bandhigay isla markaas Dodo ayaa xanaaqaysa waxay ku leedahay wixiga sidee qof kale u soo bandhigi kartaa halka kiin uu ku leeyahay aniga garabkaada ah isla markaas iyadii kiin ayaa waxay soo aadayaan tuuladii ay ku noolaa jirto ayayadeeda oo ayayadeeda markay geeriyootay kadib ay ka soo tagtay kadibna kiin ayay u sheegaysaa in qof oo qarashka dhamka bixi jiray waxbarashadeeda qofkaasna ay doonayso inay ka farxiso nolosheeda inta ka dhiman intay goobta ka raadinaysa design-keeda waxay arkaysaa wiil ay saaxiib ahaayeen la yaraantooda isla markaas ayagoo dabaaldegaya isla badboodayaan kibna aad ay ugu xanaaqaya oo kala fujinaya kadibna wuxuu leeyahay saaxiibka miya Dodo ayaan u sheegayso isdajiye ninkan saaxiibkay iskuulka kaliya waaye kadibna ninkii ayaa ku dhahay naqshadahaada aniga ku xafiday Dodo oo ku hayo laakiin hal shuruud ayaa kaga xirantahay inaan ku siiyo waa inaan xiriirkii aqbashaa kiina arrintaas maqlay ayaa ka xanaaqay kadibna ninkii aamusinayo asigoo xanaaqsan ayuu ku leeyahay afkaada ka bixi magaceeda maxaa yeelay naagtan waa xaaskayga saxan laga bilaabo isla markaas meel ay fadhiisanayaan cunugkiisa ayaan goobta la keenaya halkaas ayuu ku xaqiiqsanaya in lala kaftamayo meesha Dodo markaa naqshadeeda markay gacanta ku dhigto Kim ayay wadaysaa kadibna waxay geenaysaa meel geed ku yaalo waxayna u sheegaysaa dhimashada ayadeed kadib geedkan inay mar walba hoos imaa jirtay xasuus gooniyan oo uu yahay
isla markaasna kiin ayaa gadaal habka siinaya kadib markiiba uu shuminaya doodona markaan iyada lafteeda dareen ayaa galay laakiin waxay isleedahay uu cabsan yahay ninkan waxaana sidoo kale halkan ka ogaanaynaa qofka doodo lacagta ka bixin jiray inuu qof kale ahayn oo isla kin uu yahay laakiin doodo lama socoto iyada doodona mar walba warqada ay soo qori jirtay ugu mahadcelinaysa qofkan lacagaha uu soo diro kiinna mar walba ay warqadaheeda soo gaaraan uuna akhriyo aad ay ugu farxi jiray doodona markaan naqshadaheeda ay soo qaadatay waxayna u geynaysaa wariyaashii wayna soo bandhigaysaa halka kiin uu garabkeeda yahay iyada isla markaas wariyaasha qaar ayaa waxay bilaabayaan inay weeraraan doodo halka kiinna uu difaacayo una sheegayo inay xaaskiisa tahay afaaraheedan ka baxaan inkastoo kiin markaan laba mar uu shumiyay doodo wuxuu ku fikirsan yahay sababta ilaa hadda dareenkeeda u sheegi laadahay markaan wuxuu go'aansaday jaceylkiisa inuu soo bandhigto markaas ayuu wuxuu ku balaminayaa meel halka Leon oo ogaaday doodo naqshadeeda qofka xaday inay tahay V sida darteedna uu kula dagaalo markaan una sheegay intaan ka badan inay u adkaysan karin inay kala tagayaan isla markaasna doodo ayuu wacaya wuxuuna ila kulmay laakiin ka diidaysa oo waxay leedahay kiin ayaa la kulmi rabaa markaan doodo iyo wadada maraysa ayaa gaari dardar rabo Leon ayaana ka badbaadinayo gaarigana Leon ayuu ku dhacaya kadibna sida darteed isbitaal ayaa loo qaadaya fiina sheekadeeda ay meesha kasii wadanaysa iyadoo ku eedeynayso doodo in ninkeeda shil gelisay Leon hooyadiisna way ku daraysaa dabadeedna doodo oo qolka ku jirto ay weerar ku soo qaadayaan kadibna kiin ayaa goobta ka soo gaarayo oo badbaadinayo asigana halka ku dhaawacmayo sheekada meesha ka socotana waa dhammaan in lagu eedeynayo doodo shilka Leon oo galay inay iyada ka dambeysay waqti xadarka Leon ayaa soo kacay kadibna wuxuu sheegayaa fi qorshaheeda inuu ahay inay doodo dhibaatayso wuxuuna goobta ka cadeynayaa inay fi qofka gaariga waday lacag soo siisay si uu doodo u dilo markaan fi qorshaheeda degtay iyada uu ku soo laabtay waxaan qabanaysaa maamahdii ahayd kudsir haqoodin hadaa qodaa dheereen ku dhici doontiin moogidii kimna markaan Janice ay u helay inuu u sheegto jaceylkiisa uu sheeganaya isla markaasna wuxuu isku dayaa inuu shumiyo laakiin way joojinaysaa waxayna u sheegaysaa marka hore 3 maalin inuu xiriir la yeesho macnaha xiriirka uu ku qanciyo iyada waxaan ku leedahay 3 maalin gurigeeda daan kugu qanco waan kula joogayaa hadii kalena ka tagaya dhankan Leon hooyadiis markii ogaato inay V ka dambeysay wiilkeeda dhibaatada gaartay guriga ay ka racadeynaysaa Leon markaan feelash V ay xadda ayuu wuxuu u keenayaa doodosi mar kale uu qayb gasho tartanka maalintii xigta kiin wuxuu diyaarinayaa meel qatar oo jaceylkiisa ugu soo bandhigto doodo laakiin sheekada waxa ka qasay gabar saaxiib hore u ahaayay hab siinayso doodona dhacdaas ay la kulmaysaa kadibna iyadoo xanaaqsan ay goobta ka tagaysaa kiina guriga markuu imaado uu ka weynayaa gabadhii isla markaasna qorshe ayuu degayaa waan la wacayaa kadibna waxa loo sheegayaa in uu kiin isbitaal yaalo isla markaas isbitaalka ay ku soo boqonaysaa kadibna waxay arkaysaa iga soo soxsan waxayna leedahay haddii aad soo kacdo waa kula joogayaa haddii kalena waa ka tagayaa kadibna nin qurux badan oo adiga ha fiican ayaa raadsanaya ay ku leedahay laakiin asiga jilliinkiisa ayuu sii wadanaya oo ma soo kacayo markay isku day inay baxdaan isla markaa uu soo boodaya gacanta uu ka qabanaya oo ka celinaya inay baxdo wuxuuna bilaabayaa dhacdada meesha ka dhacday inuu u sharaxo wuxuu sheegayaa gabadhii hab siinaysa inay wax xiriir ay ka dhaxin gabadhaasna ay ahayd gabadh maskaxda ka xanuunsan sida darteed ay hab u siisay asigana ugu aamusay inuu qalbiga ka dhaawac u diidayay waxa meesha ka dhacay sidaas ay ahayd oo leeyahay adigana waxa u qaadatay si kale oo inaan isjecelnahay u qaadato oo khiyaanayo isla markaasna doodo waxay halka ka dareemaysaa inuu ninkan wuxuu isbitaalka u jiifay ee been tahay oo u jilayay markii arrinkaas xaqiiqsatana goobta ay ka tagaysaa isbitaalka ay isaga baxaysaa isla markaasna isbitaalka ayaa korontada ka tagaysaa kinna mugdiga aad ayuu u necab yahay leeyahay fulay xaar weyn way nalka markii uu aad u cabsanaya kadibna meesha ayuu fadhiisanayaa dooduna isla markii soo laabanayso kadibna dejinayso isla markaasna doodo xasuus ay galaysaa yaraanteeda waxa jiray cunug ay saaxiibo ahaayeen sidaan u cabsi jiray sidaan camalna ay u deji jirtay inankaas yarna inanka yarba ma heena waa isla ninkan oo nin saaxiibtinimadooda waxay go'day markii kiin dibadda loo qaaday waxbarasho darteed lagu qaaday dooduna markii isku wada dambeysay gacanta ayay waxay ugu qoraysaa bil markaan kula joogina bishaan ayaa ku wehelinaysa ay ku leedahay markaasna waxay ku tiri markaa weynaato waa inaad ila noolaataa leeynugta markay yirtay ay shaxaari ahaydba kim ayaana markaa u sheegaya inuu bishii gacanta ugu qortay inuu taatu u bedelay shaabad camal wuxuuna u raacsanayaa noloshiisa dham inuu hilmaamin ilaa yaraantiisa ilaa hadda oo uu qalbi ku hayay iyada isla markuu dibadda ka soo laabtana wuxuu ogaaday doodo meesha ku nooshahay markuu ogaaday in la guursan rabana aad ay ugu xumaaday laakiin markuu ogaaday guurkeeda inuu fashilmay Janice iskama qasaarin oo hore ayuu u faa'iideystay oo isla markiiba uu guursaday iyada doodo markaan tartanka ay ka qayb gashay iyadana ayaa ku guuleysatay tartanka isla markaas masrax ayaa loo wacaya wayna ka qodbeynaysaa waxayna leedahay kiin la'aantiisa inay ma guuleysan lahayn asigana ay goobta ku wacaysa ku casuumaysaa markaas ayuu farantiga saxda u gelinaya halka ay isku guursanayaan kadibna is shuminayaan qisadan halka ay ku dhamaatay fadlan muuqaalka laagtaan ay hilmaamin haddana ugu subtana subscribe noo saar haddana nolol joogtana aad ayaa u mahadsan tahay commented iyo sharekan dhankiina waaye my family movie lovers bye bye